isugu jira xildhibaano wasiiro iyo dad horay xilal kala duwan uga soo qabtay dawladda federaalka ayaa u diyaarsan soo dhaweynta madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Turkish Airlines oo hadda soo degtay ayayna madaxweynuhu saaran yahay iminkana uu ka soo degi doona madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Turkish Airlines oo aad muuqaalkeeda aragtaan waka daqiiqadaha soo aadanna isaga ayaa ka soo degi doona taaga ama janajarta loogu diyaariyay in diyaaraddu ay gudaha dadka ku jira ay kaga soo baxaan si dadka kale danaynaya inay arkaan qaabka soo dhaweynta u dhacayso iyo sidaas oo kale ay u arkaana la sii wadaaga asxaabtaada waxaana soo gudbin doonaa warar kale oo la xiriira isla xaaladan. siyaasiyiin kale ayaa halkan ku sugan waana soo dhaweynta madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Xasan Sheekh Maxamuud oo daqiiqadaha soo aadan la filayo inuu ka soo dego garoonka diyaaradaha oo iminka ku sugannahay sigaara diyaaradda saaran yahay. xaaladdu wataas madaxweynihii Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waka oo aad muuqaalkiisa iminkadan aragto isaga iyo marwadiisii koobaad madaxweynihii Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo soo gaaray magaalada Muqdisho. madaxweynihii Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waka isagoo soo gaaray magaalada Muqdisho. madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ku sugan iminka garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho waxaana soo dhaweyntiisa u diyaarsan kumanaan فرنتها وطاس هذا الشيخ محمود مدحوينه سوماليا ظاهر من جسو ويسلام يا كمال قوتالي أيوة من كعن قاضي يا وزير كبرية مالية فرقيتي يا حسن شيخ محمود وطلابة إسكندينية يا دكتور كندبان بورو يا مدحوين حسن شيخ محمود وقرون زيارتها مقالة مقدشو من كان لابتس كدينا يحل بنك ترسن أقل كسرية الصومالية يؤمن كنا إن دومي هراء بالجرح أقل كسرية إنك أبدا دوين حل بنا أقل كسرية يؤمن كعن قاضي يا مدحويني هراء الصومالية حسن شيخ محمود وحصلوا جواب جميل حاجات كتبات أقل كسرة أبشر البخاري وكمية مسؤولين تهال كان جوجا سبيس وين أصينا نصب وش
xildhibaan fiqi iyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud markan waa senator xuseen maxamed qaasim tarabi iyo madaxweynihii hore ee Soomaaliya iyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa milkiisa gacan qaadaya oo is salaamaya wasiir hore oo xukuumadda federaalka ka tirsan bare السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته